cooking channel. مزرعة رويا cooking channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkeyga Nasra Carfaayo cooking channel. asxaabe hadii aad nagu cusub tahay soo dhawow, hadii aad hore noola joogtana soo dhawow marka leento. asxaabe maanta waxaan sameysaneynaa amba muuqaalkeena uu ku saabsanaan doona insha Allah hilib oo muxuu ahaa loo sameyn doono. aan magac kale ma u kasaay, magac kale hadii aad u kasaysid qaybta commentiga hoose iigu soo qor insha Allah. dhangalo waa waqaana insha Allah. meeshaan waxaan ku haystaa hilib shiidan qiyaastii nus kiilo camal waaye hilibka. sidoo kale meeshaan waxaan ku haystaa 3 xabo ukun oo biyo ah kusoo kariyay. sidoo kale meeshaan waxaan ku haystaa isbeesiskii oo ku darsan lahaa insha Allah. meeshaan waxaan ku haystaa garam masala. meeshaan waxaan ku haystaa garam masala oo homemade guriga aan ku sameystay. sidoo kale meeshaan waxaan ku haystaa maraq digaag oo qudaarta ka sameysan. meeshaan waxaan ku haystaa filfil shiidan. meeshaan waxaan ku haystaa paprika powder amba barbarooniga oo shiidan. meeshaan waxaan ku haystaa toon iyo kabsar caleen aan soo tumay insha Allah. isbeeskeena intaan ka koobnaan doonaa iyo nus kiiladan hilib ah iyo 3 xabo ukun biyo ah kusoo kariyay insha Allah. hadeertaana waa bilaabanayna insha Allah isla socod wanaagsan. bismillah. waxaa ku daray kaamirada iga dansaneed inay ii shidneeda u maleenahay 2 qaando oo qaandadan ah oo muxuu ahaa saliid cuntada lagu kariyay ah ku shubay. saliidda ma ka badinay sababtoo ay hadhow saliid lagu dubi doona insha Allah. hadeertaan waxaa toos ugu darsanaa isbeesiska insha Allah isla socod wanaagsan. maraq digaaga hadii aad neceb tahay cusbo ku bedel insha Allah. waa isku qasaa isbeesiska dhan waxaan rabaa dhaxda inuu iiga galo insha Allah hilibka. si fiican isku soo dhaxgelinaa isku soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda waa is dhaxgeliyay hilibkii waa u jeedaa quruxdiisa ma sha Allah. sidaas isku soo dhaxgeliyay. hadda waxa sameeynaa 10 daqiiqo waa suugaa. waxaan rabaa inuu muxuu ahaa iigu huuro oo si fiican dhaxda iiga galo insha Allah dhanaanka. isku soo noqod wanaagsan 10 daqiiqo kadib. waata asxaabteeda 10 daqiiqo kadib hilibkii ku soo laabtay. waatana alaabtii oo san isku dhaxgash isku dhidhiinta kalarkiisa taa isbedel mujaadido ma sha Allah. meeshaan ukunta waxa ka soo fiiqay qobkii kore oo muxuu ahaa ii sheeg ukunta lahayd. hadeertaan waxaa sameysanaa hilibka qayb kamid soo qaada sidaana ukunta u dhaxgelinaa marka. xabada labaada idin tusinaa 3 xabo lee waaye ma badno. waakana asxaabteeda 3 xabo sidaan ku soo dhameeyay nus kiilada hilib ah 3 xabo lee ku sameeyay bano insha Allah. waxa isticmaali doonaa oo dhaxgelin doonaa muxuu ahaa ii sheeg grid gramskan oo jikinka loogu tala galay laakiin marka duwaayo waa insha Allah hadii kale uu ii kala fuqfuqa isla socod wanaagsan insha Allah. hadeertaan dabka aadina insha Allah. asxaabteeda waxa dabka soo saartay muxuu ahaa ii sheeg taawadii saliida ku shubtay ii kululaan insha Allah. wax isku soo laabanayna markay kululaato. waata asxaabteeda had saliida way ii soo kululaatay. meeshaan waxa ku soo shubtay green gramski. waxaa soo qaadaa hilibkii oo iid kuusnaa ii diyaarsanay sidaana u dhaxgelinaa marka. tartiib yuusan kaa fufuqin.
يا تلف محوك sidaan markaa u dhex gelisid toos marka waa ugu ridaneynaa insha allah. waxaa isticmaalaa qaandada saliida aaday u kululaatay. bismillaah, tartiib mana rabo inuu iga kala foqo insha allah. haddana waxaa sameynaa xabadkii labaad, dabkana dhexdhexaad ka dhigo si hilibkii oo kuugu bislaaday insha allah. xabadkii labaad isna kusoo riday. haddana waxaa kusoo ridaa xabadkii saddexaad. dabka dhexdhexaad uu ii yahay. qaybta hoos intuu nooga bislaanayo waa sugeynaa insha allah. waa isku soo laabaneynaa marow muuqaalka inuu nagu dheeraado. waata asxaabteeda hadeertaana waa gedinaa insha allah. markaa gedinaysidna tartiib wuu kaa kala fuqaa. hadeertan waxaa sugeynaa qaybta kale intuu nooga bislaanaa insha allah. waata asxaabteeda hadda sidaana diyaar iigu yahay. muxuu ahaa isheeg dhangaloogeega waa ka baxsanaa marka insha allah. waata asxaabteeda dhangaloogeena markaa soo diyaarsanay sidaan quruxda badan oo iiga soo baxa maasha allah. waxaan kor kaga soo show waxaa waay kabsar caleen decoration ahaan uga soo show inuu saxanka ii qurux badiyo sidaas ugu talagalay. xabadkan waa soo kala jaray. waxaa idiin tusinaya dhexda markaa idiin tusiyo oo kala jaro sida quruxda badan oo noogu soo baxaayo. marka waa kana markaa sidaan u kala jartid meeshan waxaa ka muuqdo ukuntii jaalaheeda cadaanka iyo hilibkii kalarkan brownka sameystay sidaasoo qurux u yahay marka maasha allah. dhangalooga waana kana jaalihii oo dhangalooga marka dhexda ka leeyahay, korne kalarkii oo waxaa waaye marka dahabiga ahaa ama baroonka ahaay. marka maasha allah waa kana sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay. waxaa u sameysan kartaa muxuu ahaa ii sheeg waxaa u sameysan kartaa bariis yaroo cad aa ku cuni kartaa. wax oo diidaayo malahan aan ku dhaha laakiin bariisku ku qurux badan yahay. waa kana marka hilibkeena amba dhangalooga مسرعة cooking channel. مسرعة